بسم الله الرحمن الرحيم ورين وزيرك دليل سبورتيغا محمد بري وزير كوحجينك جاشانيغا عبد الفتاح المسؤولين مدحوينها حرير كبدا عقد الصوماليات على شينو يوم مدحوين كوحجينadiisa agaasimo guure asna ka yimi wasaaradda arrimaha dibadda oo ay hoos tagto bulsho weyn ilaa 4 milyan gaarayso qorbo joog oo dhan xukuma dhammaan guddiga fulinta xiriirka kubadda cagta dhammaan hogaamiyaasha kooxaha xiriirka kubadda cagta ciyaartoyda rogcadaaga isboortiga Soomaaliyeed dhammaan mas'uuliyiinta meeshan joogta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum salaan kadib waxay ii tahay sharaf iyo qiimo inaan maanta soo gabagabayno sanadkii koobaad liigan uu bangigu ka yahay IBS ka yahay sponsorshipka sanadkiisii koobaad oo ay maanta si runtii mugla ama sharaf leh ama unbeaten ay ku qaaday kooxda dekedaha waxaan leeyahay hambalyo dhammaan kooxihii ka soo dheelo dhan waxaan leeyahay hambalyo runtii tartankan sanadkii koobaad ee sponsorshipka aan hogaaminayno wuxuu noogu soo gaboobay si aad iyo aad u qiimo badan u degan wax dhibaato ayaan jirin waxaan rajaynayaa saan horeba u ballan qaadnay inaan next 5 years aan sponsorkan aan hayn doono waxaan noo harta 4 sano ilaahidiis waxaan rajaynaynaa in sanadka soo socdo uu noogu bilowdo waqti hore noo bilowdo ama on time noogu bilowdo sidaan aan ka sii fiicnaan waxaan sharaf ii ah markaan gadaal u fiirsho oo runtii reereeni ah aanan marna ka shalaynin sponsorshipkan sababtoo waxaan arkaa horumarka uu samaynayo sportiga Soomaaliyeed ama footballka Soomaaliyeed waxaad ogtihiin inaan wacdaro ay ka soo dhigan kooxahan waxaan rajaynayaa inuu intaa ka sii hormaro waxaan bogaadinayaa dhammaan bahweyntii ka shaqeysay macallimiintii ka shaqeeyay agaasinkii ka shaqeeyay xiriirka oo dhaxda xirtay wasaaraddii oo iyaduna korjoogtoonteeda ahayd mid aad u wanaagsan wasiir maxamed barre aadan u bogaadinayaa waxaan rajaynayaa inuu intaa ka sii badiyo isgarab istaagga iyo hogaaminta wanaagsan isagii jeego howl culus baa u taalla inay korjoogteeyaan maxaa la yidhaha si wanaagsan oo hufanna ay u maamulaan oo kor ugu maamulaan waxaan ogahay xiriirka kubadda cagta in hawsha u taallaa ayaan ahayn mid yar waxaan bogaadinayaa hay-adaha caalamiga ah oo ay ugu horeyso FIFA runtii oo garab istaagga wanaagsan u sameeyey noo dulqaatay aan ogahay khaladaad badan oo ay nagu fulin kareen naga wareegsaday garab istaagga da'yarteena Soomaaliyeed runtii aadan iyagana u bogaadinayaa saad ogtiin badda Soomaaliya waa soo laabat waxaan noqonnay qayb ka mid ah adduunka inaan meel walba ka muuqanno ka dadaalno ka soo dhalaalno waa arrin waajibna saaran weeye haddaan si bahasha la isla hayn oon la isla wadin oo nin walba meesha uga aadan guul gaari mayno waxaan rabaa marka laba fariimood inaan da'yarta Soomaaliyeed ee maanta ka muuqato fagaarayaasheen inaan u diro waa midda koobaadee waxaad role model u tihiin malaayiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo idin fiirsanaysa waa marka koowaad waxaan rabaa ka soo koob mihnada ah haysaanoo footballka ah inaad maadaama intaasoo kumanaana malaayiin dhalinyaro idin fiirsanayso idinku dayanayso inaad akhlaaqiyaadkiina hagaajisiin wanaajisiin diinta ku dhagtaan maxaa la yidhaha cibaadada aadna iloobinina uusan idin ilowsiin mihnada aad ku jirtiin waa midda koowaad midda labaad in adoo mihnadaadii wada sportiga dheelaya aan waxbarashada iyadana la iloobin waxaan aad u danaynaynaa oon rabnaa inaan hadda kadib fagaarayaasheenna ku abaalmarino wiil sportska dheela ama gabar sportska dheesha oo shahaadadii dugsiga sare soo qaadatay oo shahaadadii maxaa jaamacadda soo qaadatay oo waxbarashadii marna aan ilaabayn ayadoo gacanna ku haysata hobbigeedii iyo mihnadeedii inay gacanta kalena ee waxbarashada ay ku haysto labaas dardaarin dhalinyaradan u soo jeedinaya bahweynta sportka Soomaaliyeed waxaa ii muuqda horumar weyn oo idinku soo socda dadaala meesha ka socda waxaan idin xaqiijinayaa IBS inuu garab istaagiina sii wadi doono ilaahay idinkiis muhiimad ugu weyn oo aan u sameynana sidaad uga jeedin bishaarkeen
empowering you ومعناheedu yaa u taagan dhiirigelintaada waxaan u taagannahay dhiirigelintiin aan wada shaqeyno ka wada shaqeyno Soomaaliya baraara ah horumar gaarta caafimaad leh hodmaysa kobcaysa koraysa horena u socota aan ka wada shaqeyno arrintaas xargaasna ku wada dhagin